بسم الله الرحمن الرحيم دمانتين وان إذن سلامي ما أنت واحد سويديننا عشر سيدي الله حفتيا وسؤال مهمة سيدا أوجد واحد عن دورتي إن أي نقطة طبق أوجه الرياء أما موضوع أوجه الرياء يعني كل صوبان ديجو برنامج كينا سرت واحد برشة حفتيجو أرض فربضان وأكو أذجيه إلا ما أي قاعدو هير أي تهمان نفتو ذا أو أي استلاحظان محا أذجك كقلدان مركو أركو قفكو أما مركو أركو أرضيجي لميتك أها أو صفة ضد وحو حفظيا isagiina marka uu sharaxdo 10 xafid ay aad iyo aad ugu adkaato waxa uu isu diinaya talow adiga maxaa ka qaldan marka waxa muhiim ah marka koobaad in aynu ogaano qofka xifdiga ku wanaagsan iyo ka xifdiga ku liitaba inay isku yihiin laba arday ama laba qof oo isku mid ah maskaxdooduna ay tahay laba isku mid ah marka meesha ay wax ka qaldan yihiin maaha maskaxdaada meesha ay wax ka qaldan yihiin maaha waxbarashadaada لكن ماشي الصحة أي وحكي قلديهين وحويان وقابك هذا وحو حفظيسو طلابة الكوبات ومركا أينو فصل كفتشوغنو حفظيقو وحا أو كسو بلاب ما مركا عشركا أو معلنكو كورديقيو سيدا أوجد أرضيقو وحلوغا باهيهي مركا أو فصل ككوشيرو إنو سيو وناكسن ودقيستا عشركا معلنكا وليبنا ويسكو دايو إن معلنكو كلمة والباو وشيغيو وصفي عن وفهمي كرو waxa khalada ardayda qaarkood dhaqamada ay sameeyaan ee inay fasalkii ka dhigtaan meel lagu ciyaaro ama meel telefoon lagu daawado ama meel wax lagu dhageysto cashirka ka baxsan sida awgeed ardayhu waxa lagaaga baahan yahay hadii aad rabto inaad si fiican wax u xifdido marka aad fasalka joogto in aad macalinka kelmad walba uu leeyahay aad si fiican u dhageysato hadda waxa arintaasi ka caawin doontaa marka xifdiga aynu imanayno iyo cashirka la akhriyo waayahay cashirkii si fiican baad soo dhageysatay si fiicanna waad soo fahantay ilaa hadaba intee in leeg ayaa laga rabaa cashirkan in aad fahansan tahay waxay yiraahdeen ardaygu marka uu rabo cashirka inuu xafido waa inuu ka fahansan yahay 80% intaa wixii ka yar cashirka 80% ka yar hadii aanad fahansanayn cashirkaasi lama xifdin karo marka qaacidada koobaad waxaad maskaxda ku haysaa cashir aanad fahansanayn lama xafidi karo طلابة اللبات عشر كمان كان في عنه سوف هنتو واحد بلعبس أو واحد لا يقانو أخرس ككوبات أما واحد لا يقانو first reading أخرس ككوبات وأخرس دول المرأة والله قلت لك إن لو قلت المرأة chapter كأما عشر كمركا أخرية إذا أوجد واحد لجربة عشر كأخرية سو إن أدمرك هوري سجود مرأة العشر كي وصود المرتو أدي جو مسكح هذا نكو هيا أو في سنة قد بدأ مهم كاي عشر كاسي كجرا loo yaqaanaa waa the second reading ama waa akhriska labaad markii hore cashirkii aad si guud u soo dulmartay markii labaad hadana waxa laga rabaa cashirkii inaad mar labaad akhriskiisi aad ku soo celiso waxaad maskaxda ku haysaa inta aad cashirka akhrisanayso dhammaan wad aamusan tahay waa in waxa muhiim ah marka in aad iska fogeyso wax walba oo cashirkaaga ka mashquulin kara akhriska labaad ardayga waxa looga baahan yahay inuu si qoto dheer cashirkii u akhristo sidii markii hore si ka sii qoto dheer waliba waxa la rabaa inuu u fiirsado cashirkii oo ku nuuxnuuxsado si uu u fahmo cashirka meesha ku qoran highlighting ama calaamadaynta ardayga waxa looga baahan yahay marka uu dhameeyo akhriska labaad in uu calaamadaysto qodobadii ugu muhiimsanaa ee ku jiray darsigaasi sida aynu la wada socono cashir waliba waxa uu leeyahay qodobo muhiim ah ama waxyaabo loo yaqaano the main point waa qodobada ugu muhiimsan chapterkaas ama cashirkaas inta kale cashirka hadhay isaga oo basharaxaysa sida awgeed ardaygii waxa laga rabaa talaabada saddexaad in uu calaamadaysto qodobada muhiimka waxa kamid ah definitionka chapterka typeskiisa categorieska kala duwan ee chapterka ku jira iyo wax kasta oo aad muhiim u aragto oo chapterkaasi soo hoosgalaya sida awgeed waxa loo baahan yahay arday waliba marka uu xafidayo inuu wato qalinka calaamada waxa loo yaqaanaa reciting ama ismaqashinta qodobkan waxa loo yaqaanaa waa sirta xifdiga ardayga wax xafida iyo ardayga aan waxba xafidin waxa ay ku kala duwan yihiin dabaqitaanka qodobkan ismaqashinta ama reciting waxa ay ka dhigan tahay cashirkii aad soo akhriday ee aad soo fahantay ee aad soo calaamadaysatay in aad adigu isku dul akhrido waxay dhahdaan waa inaad ka soo qaaday in hortaada fadhiyo arday aanan cashirka fahansanayn
marka waxa aad isku daysaa cashirkan wixii adigu aad ka fahantay inaad ardayga ku hor fadhiya aad u sharaxdo adigoo kaliya wax akhrisanaya ayaa haddana waxa aad isku dayaysaa oo maskaxdaada suuraysanaysaa inuu ardaygu hor fadhiyo kadibna waxaad isku dayaysaa si aad ardayga aad cashirka aad u fahansiin lahayn daraasaadku waxa ay sheegaan qodobka afraad ardaygu marka uu dhammaystiro oo ah ismaqashiinta in cashirkii uu xafdisan yahay 100%. waxaa loo yaqaanaa summarizing ama soo koobitaanka ama khulaasaynta cashirka. Summarizingka waxay yiraahdeen waa calaamada lagu kala garto ardayga dadaala iyo ardayga aan dadaalin. Summarizing waxa ay ka dhigan tahay si kooban marka aynu sharaxno waa cashirkii aad soo akhriday markii ugu horeysay kadibna aad soo fahantay markii saddexaadna aad soo calaamadaysay markii afraadna aad soo sharaxday marka shanaad waxa loo baahan yahay qalin iyo warqad cadaana inta aad soo qaadato inaad soo koobto cashirkaagii oo qodobadii ugu muhiimsanaa cashirka aad kala soo baxdo. waxa ceeba arday raba inuu wax ka xafido kaliyaata textbook oo aanan haysan waraqo cadaana oo cashirkiisi ku soo koobto. sida awgeed ardayahu haddii aad rabto cashirkii inaad xafido aanad iloobina imka cashirkii waynu xafidsanahay laakiin maxaynu rabnaa inaanad iloobin waxa ka caawinaya cashirkii inaad ku samayso summarizing ama aad soo koobto. sida awgeed waxa loo baahan yahay waraqo ka baxsan textbook aad akhrisanayso inaad mar walba ay ku garab yaalaan oo aad ku soo koobato chapterka aad akhriyayso. gabagabadii waxa loo yaqaanaa waa review waa muraajaco. waxa aad soo muraajacaynaysaa maaha textbookii aad wax ka akhriyeysay ama chapterkaaga uu ku qornaa waxa aad muraajacaynaysaa waa waraaqihii aad cashirada aad ku soo koobatay. marka ardayga waxa fidaya waxa laga rabaa mar walba uu baahdo chapterkii inuu ku laabto in waraaqihii cadaankii ee uu ku soo koobtay inuu cashirkii ka muraajaceeyo oo uu muraajaco uu ku sameeyo. ku dhaqma waxa aan ku kalsoonahay subject-gii ama course-kii uu akhrinayay inuu xafidsan yahay 100%.